السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة درمان أصحابتي أنت جانو كحران أنت عصب لمانتين كسورة هذا مقالكن ما تحرى مقالكن هذه إله دمو إنه الرعير ووصم يوم مقالة عن صوبة عن سيريس سلسلة سكحران سلسلة ده وحكاكم نادون تا لبا قيبات قيب أو وتلقى لي إن كوديو ديزاين وحنا قالوا أما ويب ديزاين ويب ديزاين ayaa horta marka hore focus ku saarnaa sababtoo website ayaan samayn doonaa laakiin waxyaabaha aan ku baran doono web design kaliya ma khuseeyaan oo designka si guud asaasiyaadkiisa ayaan ku baran doonaa haddii ilaahay idmo waxaan isticmaali doonaa programkan caanka ah ee loo yaqaano Adobe Experience Design ama Adobe XD loo yaqaano haddii aan programkaas haysan waxaad nagala socon kartaa oo adigoo isticmaalaya programkan kale isla caanka ah ee Figma la yiraahdo isaga ayaan kula talin lahaa ardayda sababtoo ah wuxuu arday tahay wuxuu ku siinayaa plan maxaa la dhahaa bro ah free ayaa ku helaysaa qaybta labaad ee aan rabno serious-kan inuu serious labaad isla noqdo waa qaybtan loo yaqaano front end web development ama programming ay noqon doontaa haddii ilaahay idmo waxaan ku isticmaali doonaa HTML CSS iyo JavaScript dhammaantood waxay noqon doonaan beginner level ama bilowga ayaa ka bilaabi doonaa waxaan u bilaabayaan waxay tahay labadan course aan isleeyahay aad ay muhiim u yihiin sababtoo ah waxaa ogtihiin in muuqaalkan ka horreeyay aan idinkugu sheegay in skills aad u muhiim ay yihiin in uu qofka maanta yeesho haddii ay noqoto design iyo haddii ay noqoto programming sababtoo ah takhasus kastoo aan leedahay waxaa aaminsanahay in ay maanta muhiim tahay in ugu yaraan ka fahansan tahay bilowga iyo asaasiyaadkooda inaad fahansan tahay si takhasuskaaga aad ugu khidmeyn karto wax badanna ugu samayn karto haddaba marka aan muuqaalkaas soo gudbiyey dad badan ayaa codsaday in aan koorsyo aan ku dhigano skillskaas aan samayno insha allahu tacaala kan serious-kana waxay noqon doontaa haddii ilaahay serious-ka ugu horeeya haddii aad idin anfacdo ama haddii aad aad u aragtaa inay muhiim tahay waa soo badi doonaa haddii intaa ay ku filaatana iyadana xagga ayaan kaga heli doonaa serious-kan qaybtiisa hore waxaan isticmaalaynaa saan sheegay programkii loo yaqaanay Adobe XD qaybta dambe programmingkan waxaan isticmaali doonaa isna Visual Studio Code programka qanama VS Code oo soo gaabay ee Microsoft leedahay serious-kan labadiisa qaybood waxaan dhisi doonaa hal project halkaas project oo ah مثلا website portfolio ah ama website shakhsi ah oo qof leeyahay macluumaadkiisa ku saabsan waxa uu yaqaanay iyo maxallada waxyaabaha uu qabtay waxyaabaha website waxa sheegayo adiga sida siiradaati oo kala ku noqon kara ama maxallada CV ku noqon kara ay noqonaya website-kaas aan waxaan ku samayn doonaa haddii ilaahay marka hore Adobe XD markaan design-ka dhamaystirno oo wax walba ay diyaar yihiin ayaan waxaan u bedeli doonaa isla design-kaas ayaan waxaan u bedeli doonaa code HTML iyo CSS anagoo isticmaalayna iyo JavaScript aad u yar waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysataan haddii aanad horay u arag programming ama coding aad ayuu kugu habboon yahay haddii aad design hore u aragna iyadana aad ayuu ku anfici doonaa sababtoo ah labadaba waxaan ku sharxi doonaa projectiga aan dhex raacin doonaa asaasiyaadka labada skill ee aan soo sheegay intaa waxaan rabaa inaan raaciyo in dhammaan fileska iyo resourceska aan isticmaali doonaa haddii ilaahay idmo labada projectiba ka designka iyo ka codekaba dhammaan aan idinla wadaagi doono kuwa designka waxaan isku dayi doonaa inaan website-kayga ku share garayo kuwa kale codekana waxaan isku dayi doonaa haddii ilaahay idmo inaan kusoo nashriyo ama kusoo share garayo GitHub waxaa kaloo insha allahu tacaala markaan dhammayno labadan serious isku dayi doonaa iyadana inaan sharaxno sidee ugu samayn kartaa مثلا codekaaga version control oo isticmaalaya GitHub ama Git iyo waxyaabaha la xiriira waxaa kaloo ku dari karnaa haddii ilaahay idmo hostingka iyo domainka sidee isugu xiri kartaa una u samayn kartaa iyadana waxaa kaloo muhiim ah aan rabaa inaan baraarujiyo inuu website-kan yahay demo oo una ahayn portfolio sax ah oo aan leeyahay saa aawadeed aad wax walba ka bedeli karto
koodhka wax license oo kaa rabo ma lahan. Waxaan isku dayay resourceska isticmaalin dhammaantood inay free yihiin, sawirradoo kale inay wada free yihiin. Haddii la hadmo marka kalarada waxaa isticmaali kartaa kalarkaa rabto. weliba waxaan jeclaan lahaa inaad waxyaabaha qaar ka bedesho oo aad wixii aad ku dari karto projectiga aad ku darto. Sababtoo ah fundamentalska haddii aad fahanto muhiimaddu waa intaas. Wixii aad doonto samayn kartaa. Waxa kaloo muhiim ah oo aan rabaa inaan baraarujiyo waxay tahay in aad nala wadaagtaan waxyaabaha aad samaysaan si dadka asxaabta kale ay dhiirigelin u noqoto. Waxaan isku dayi doonaa haddii ilaahay idmo inaan u sameeyo laba serious group Facebook ah. Waxaan website-kayga hadda qayb ka mid ah oon dhismaheeda socdaa oon weli dhammaystirin forumkaas oo ugu talagalay lacala haddii aan korsiyo noocan oo kale sameyno in mushkiladaha ka imaado kale aan isla xalino. Qof walba intuu ku dhaamo kale uu ka xaliyo su-aasha qofka intuu forumka kusoo daabaco qof kale uu ugu jawaabo. Inta forumka kala dhammaystirmay laakiin waxaan isleeyahay waxaan kaga faa'iideysan karnaa Facebook group ayaan sameyn doonaa. Waxaan rajeynayaa inaad si fiican uga qayb qaadatid. Facebook groupka insha Allah tacaala wuu xirnaanayaa, closed group ayuu ahaanayaa. qofkii rabana insha Allah tacaala videogan ayaan linki soo diranaa qof walbo iska diiwaan geliya linkigaas ayaan insha Allah tacaala u diri doonaa linki groupka invitation. Marka waxaan rajeynayaa inaad haddii aad mawduucan danaynayso in aad soo codsato linkiga intaan ka bilaabayno course-ka. waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.